لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا dhanka kale waxaan booqanay dugsi isna kamid ah dugsiyada ardadoodu wax ku bartaan buugaagta iyo aaladaha casriga ah عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا. macalinka oo aan mar wax ka weydiiyay xanaanka uu ardayda wax ugu baro buugaagta iyo aaladaha casriga ayaa waxa uu iga sheekeeyay sida tan buuga markaan ku hormaro buuga waxa waaye wada shaqeyn waalidka iyo macalinka markuu buuga ku qoro cashirka dan uu baxa ardayga wuxuu la aadaa gurigiisa buug ku soo goorinaa sidoo kale cunuga markuu buuga suurada ay u dhamaato kale suurada ilaa adiga tamriin badan oo ku dhex sameynaa dugsiga iyo guriga 3 mar ilaa in ka badan marka saadarteed taas waxay keenaysaa waalidka wuxuu ogaanayaa ardayga inuu wax qoro waalidkii aan dadaal jirin xataa waxa laga yaabaa in oo magaciisa ma taqaanaa asigoo meelaha iska meemeersanayo ardayga wiilkiisa wax qoray markuu arko marka waxa laga yaabaa inuu hal mar soo kormeero fiiribal muxuu qoraa ama muxuu ku ciyaara inuu dhaho markii cunuga cashirkiisa qoranayo markii la arko waalidku waxa laga yaabaa inuu qiiro galo oo farxa cunugiisa maanta far u bartay wax qoray tan looxa lama horaan waa horta hore looxa waxa waaye cunugana wuxuu ku qoraa dugsiga cashirada soo dhaaf isla cashirkiisa cashiro la soo dhaafina farbarasho ahaan u qoraa si ay usan u dhumin wixii la soo dhaafay tan kalena isla cashirkiisana dugsiga looxa uu ku qoraa marka buuga waxa daruurada keentay buuga in cunuga oo mataqaana waalidka iyo dugsiga inay wada shaqeyn fiican meesha ay ka dhaxdhashato waalidkana si uu ogaado dugsiga dugsi jiif inuusan ahayn oo dugsi lagu dadaalayo cunuga inuu يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح